بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta waxaan kula wadaagayaa mid kamid ah fitamiinada ugu muhiimsan jirkeena oo lagu magacaabo vitamin C ama ascorbic acid waxaan halkan kula wadaagayaa hadii fitamiinkaas oo naga yaraado jirkeena saameynta uu geysan karo meelaha laga helo cunto ahaan iyo sidoo kale hadii loo helayo supplement ahaan sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa normally waxba oo noo qabto vitamin C ama ascorbic acid vitamin C waa mid kamid ah fitamiinada ugu muhiimsan wuxuu muhiim u yahay si loo sameeyo ama loo qurxiyo murqaha xididada iyo sidoo kale arjawaha jirkeena ku jira ama arjawda jirkeena sidoo kale waxa qayb ka qaata bogsashada meelaha dhaawacyada iyo nabraha ay soo gaaraan sidoo kale vitamin C ga wuxuu ka hortag u yahay in jirka ay soo gasho waxyaabaha loo yaqaan radicalska ama sunta kuwaasi ayuu ka hortagaa wuxuuna leeyahay astaan la yiraahdo antioxidants oo sunta inuu ka hortagaa oxidantska ama waxyaabaha radicalska loo yaqaan oo ka hortago vitamin C gu waxyaabaha inta badan ka dhasha markii la burburiyo cuntooyinka aan isticmaalnay ama sidoo kale marka qofku isticmaalo waxyaabaha sida tubaakada cigarette iyo waxyaabaha lamid ah chemicalska qofka ismarshaan oo gabdhaha iyo waxyaabaha kale la isticmaalo marka wixii ka dhasha oo loo yaqaan free radicals oo jirkeena halis ku ah sidoo kale wadnaha naga saameey kara maqaarka naga saameey karo kansar keeni kara ama si gudban kansar u keeni kara ayuu ka hortagaa oo astaan antioxidants ayuu leeyahay oo oxidants waxyaabaha radicalska ah sunta waay sidoo kale vitamin C wuxuu naga caawiyaa in la nuugo ironta lana kaydiyo oo jirkeenu uu kaydiyo sidoo kale sare u qaadaan oo ironta la nuuga waxay sare u qaadayda dhiigga oo qofku ma taqaan in dhiig fiican jirkiisa la sameeyo iyo suurtagal ay noqonayda waxaan ogaanaysaa in vitamin C ga jirkeenu uusan samaysan laakiin aan ka helnay inta badan cuntada aan isticmaalno oo vitamin C ga inta badan cuntooyinka aan isticmaalno ayaa laga helaa marka hadii vitamin C uu kugu yaraado macnaheedu waxay ka dhigantaa ironta jirka loo rabay inay gaarto dhiigga laga sameeyo dhiigga inta badan globin ama vitamino iyo waxa laga sameeyaa iron laga sameeyo marka hadii vitamin C kugu yaraado iron badan jirka ma nuugayo hadii iron badan la nuugina dhiigga uu kugu yaraana halkaasna tabar darro badan iyo wareer badan waxba ka imaanay inta badan dadka vitamin C uu ku yaraado oo macnaha waxa loo yaqaanaa wax la xaalad leeyahay waxay galaan vitamin C deficiency ama ascorbic acid deficiency galaan waxaana loo yaqaanaa xaalad sidoo kale ascarf ayaa la yiraahdaa scarfigaas waa in qofku lagu arko inta badan dhiigga oo yaraada oo sidoo kale dhiig badan lagu arko sidoo kale barar ku yimaada meelaha juuga ay gaaraan oo kale sidoo kale meelaha mataqa dhaawacyada aad u bogsan ayaa inta badan lagu arkaa qofka vitamin C ga jirkiisa oo ku yaraado waxaan inta badan dadku ay yaqaanaan oo caanka ah waxa waaye dhiigga oo badan dadku yiraahdaan vitamin C ga ku yar laakiin meelaha mararka qaar dhiigga wuxuu ka imaan karaa hadii xataa vitamin B12 ka ama vitaminada kale iyo sidoo kale hadii infection oo jiro gingivitis la yiraahdo ku dhacay qaybaha ciridka marka laakiin vitamin C uu qayb weyn ayuu ka yahay laakiin way la socotaa in dhiigii oo yaraada caadiga ahay sidoo kale ma taqaana meelaha nafra aysan bogsanaynin qofku dhiig laan kidii lagu arkay dhiig lagu arkay waxaasna la socdaan hadii aan sheegno hadii qofka vitamin C uu ku yaraado kala saalaan ama lagu arkay dhiig oo kale talooyin kala sii kara ay meelaha laga heli karo vitamin C waxa kamid ah sida bahalka loo yaqaan barbarooniga geedaha kale qudaarta waxaan ka hadlaynaa meelaha laga heli karo barbarooniga kamid ah yaanyada kamid ah batiiqa sidoo kale waa la sheegaa qudaarta dhanaan sida liimaha liim oranjada kale beelmada kale ismaandheyska ama waxa afka qadu yiraahdo spondias sida caadi ismaandheyska spondias loo yaqaana sidoo kale vitamin C ga waxa loo helaa qaab supplement ya loo helaa oo soo diyaarsan ayaa la helaa waxa la sheegaa 90 mg in uu u baahan yahay ninka ragga maalintii inuu qadar vitamin C uu helo dumarkana soo gato 20 mg la sheegaa waxa sidoo kale cilmi baarisyo la sameeyay la ogaaday in vitamin C ga iyo vitaminada qofka haduu qaato inta badan ay ka hortag u yihiin inuu yimaado kansarka iyo cudurrada wadnaha ku dhaca sidoo kalena inuu yimaado waxay ka hortag u yihiin xanuun loo yaqaan age related macular degeneration oo ah ma taqaanaa in qaybaha isha ay xoogay degeneration ku dhaco qofka halkaas aragga ku lumiyo inta soo soo koobinaa mawduucina maanta oo ah vitamin C iyo meel laga heli karo iyo saameynta iyo muhiimadda uu noo leeyahay intaas iyo barnaamijkan xiga aan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo channelka ku soo biira insha Allah taala liban siyad asxaabtan la shirgariyo ilaahay idinkiisa